isbitaalka guud ee magaalada Baran ayaan maanta soo booqday si aan ula socdo xaaladda isbitaalku sida uu shaqeeyo maamulka iyo waliba dhakhtarka caanka ka ah gobolka Dr. Ciise Axmed Taajir ayaan la sheekaystay waxay ka warrameen sida ay u shaqeeyaan sida ay dadka u qaabilaan xanuunada ay daweeyaan qalabka ay haystaan iyo baahiyaha ay qabaan isbitaalkan waxaan maleynaya marxalado kala gedisan ama ayuu soo maray waxa sidiisaba la furay 2005 bishii 8 muddadaas anigu dhaqaatiirtii joogtay ayaan ka mid ahaa isbitaalku marxalado badan ayuu soo maray xilliga la furiyay isbitaalku dhismihiisu ama shaqadiisu way yareed dabcan muddadaas 12 sano uu furnaa waxyaabo badan oo waxa weeyaan ama cudurrada ha noqdeen inpatients ka yiraahdaan ama kuwa outpatients yiraahdaan ama qaybaha TB-da aad bay halka ugu soo kordhayeen maadaama dadweynaha u imanayay isbitaalkan meelo badan oo baran ama sanad area ay ka imanayeen aad iyo aad ba dadku dadku uga dabcan wax badan u qabtay dhaqaatiirta ugu badan waxa weeyaan dhaqaatiirta guud ama dabcan dhakhtarka guud waxyaabo badan oo uu sameyn karo way jiraan sida qalimada degdega ah sida dumarka marka fool loo keeno ama dhiig wax ha noqoto ama ha lagu qalo ilmaha ha laga soo saaro dhakhtarkaas uu awoodi karaa in uu waxyaabo badan u badbaadiyo laakiin dhakhtarkii qaliinka ma jiraan oo ma joogaan way jiraan dhaqaatiirta lafaha naftigooda inaanay halka jini iyo kuna riyaasho system nerfiyaasha way jiraan dhaqaatiirta wadnaha kaliyaha waxa soo dhaqaatiir baa ku takhasusay kuwaasuna ma jiraan meesha waxa ugu muhiimsan in joogo dhakhtar qaybtan waa qaybta qaliinka guud lagu sameeyo sida dumarka oo kale si looga amuliyo ama dad kale oo dhig baxay si wax looga qabto qalabkii waad u jeedaan qaybtan waa qaybta kombiyuutarka oo la rabay sida wadnuhu u shaqeynayso shaykiisa loo ogaado qaybtan waa qaybta nafsashada sababka oo kale sisanku u shaqeynayay si loo ogaado qaybahaasuna istifooyinka qaybaha lagu dhayo ama waxyaabaha qalabka degdeg ah wax lagu qabanayo qaybtan waa qaybta guud ee qalimada sidaas ayaanu ugu shaqeynaa wax badan dabcan way maqan yihiin laakiin inta haddana dadka ugu qabano wax intaan ma ku filantay dadka inay qasho maya intaas wax badan baa ka yara dhiman intaan quraada waan jeclaan qorno laakiin hadda maxaa la yiraahdaa way isku filanaa intaas wax badan baan kaga qaban karnaa hooyadu markay leedarka tahay ama loo keeno waxaan ku nasinaa sariirta ka bacdi waxaan kaga dhalinaa sariirta markii ay normal delivery tahay soddon daqiiqo ka bacdi waxaan u gudbinaa qaybta nasashada singalka oo animationka caadiga marka hooyo kasta oo fooranaysa oo naloo keeno waxay ku dhashaa miiskan bay ku dhashaa miisaankii carruurta ultrasoonkii uu dhakhtarku saarayay marka ilmaha xaaladiisa uu ogaanayay marka alxamdulilah waxyaalaha naga dhiman way jiraan laakiin maxaa ka mid ah waxyaabaha arrinta dhaliinka muusha ka dhiman waxyaalo naga dhiman baa jira sida steriliserka oo kale markii qalabka la steriliser garaynayo oo kale waxaan ku steril garaysanaa istufooyin ama bibigaas baan isticmaalaa marka waxaan u baahanaa kuwa electri oo weyn oo qalabkoo dhan oo qaada insha allah waxaan booqanay qaybo kala duwan oo isbitaalka oo ka mid ah qolka qaliinka qolka lagu qaabilo gargaarka degdega ah iyo dadka markaas xaaladooda ay degdeg tahay sidoo kale waxaa isbitaalka ku yaala qayb loogu talagalay in lagu daweeyo dadka qaba cudurka TB-da isbitaalku waxa ku leeyahay taariikh weyn gobolka waana qayb muhiim ah oo arrimaha bulshada koob ka ah magaalada Baran wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo sida maartay waarka medical wardska waarka ragoo kale waarka dumarka waarka umulaha laga umuliyo waarka carruurta waxaa kaloo jira qaybta TB-da oo section gaar ah oo hay'adan Muslim Aid gacanta ku hayso waxaa jira qaybta qaliinka oo operation theaterka oo lagu sameeyo qalimada guud qaybta emergency-ga ama gargaarka degdega waxaa jira qaybaha laboratory-ga blood transfusion-kii buu leeyahay wuxuu leeyahay pharmacy department-kiisi wuxuu leeyahay qaybtii maaragtay maamulka ama xafiisyada maamulka wuxuu leeyahay qaybtii x-ray-da runtii isbitaalku wuxuu
wuxuu qabtaa shaqooyin aad u badan oo bulshada u hayo inkamka soo galaa waa waxa yar incentive-ka yar ee laga qaadayo dadka imanaya loo adeegayo laakiin ma support garayn karo isbitaalka baahidiisa oo dhan saas laajigeedu waxa weeyaan waa caqabada ugu weyn oo xagga salariga isbitaalka haysta caqabada labaad waxa weeyaan dhinaca biyaha ceel baa ka qodan ceelkaasi qayb ka mid ah isbitaalka uu sabab garaya isbitaalkuna wuxuu u baahan yahay runtii biyo joogto ah oo soconaya isbitaalka guud ee Baran waxaa looga yimaadaa degmooyinka iyo waliba magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan sidoo kalena baadiyaha ku hareeraysan Baran iyo hareeraheeda iyo guud ahaan gobolka Sanaag qaar ka mid ah bukaanka aan kula kulmay isbitaalka guud ee Baran waxay ka sheekeynayaan halkan sababta u yimaadeen iyo waliba mid kasta waxa uu sheegayaa deegaanka uu ka yimid bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faax Xuseen Maxamed waxaan ka yimid gobolka Ceergaabo halka waxaan u arrimo caafimaad insha Allah xirteen khayr ugu dhamaadane aniga magacaygu maxaa jira Khaalid Baayada cilmi baan ka yimid xarun baa laga soo qaaday cilmi halkan ana magac Baran baa la keenay dadka ciise joogo dabadna halkan bal jiifiyay xarunka soo warramay oo dawooyinka la qoray waa la naaday oo waxaan xarunka hadda waan kala nahay aad baan fiicnahay ina ka sii saakay insha Allah caafimaadka salaam ilaahay ka rajeeyaa halkan dawooyinka qoray kulli baan kula nahay aad baan u nahay والله يا بعض قاعد في ملان ولا برجع مقالي كورن هرنا هرنا دوالة جاي بعض مقالي بعض خلاص يقولون هالك شوف فديا halkan aan ka soo hadlayo aan taagnahay waxa iga dambeeya gaari noociisu yahay bukaan la roorka ama ambalaaska gaarigan xabadu ma karto waxaana uu ka mid yahay waxyaabaha caanka ah gobolka waxa ku deeqday bisha cas ee dalka waa jaamacadda Baran oo ka soo hadlaya Soomaali Cable Baran